saacan la joogo waxaa laga yaabaa inaad farxad dareemaysid ama inaad murugo dareemaysid. maanta dunida waxaa buux dhaafshay dad dareemaya codbaahiye ka shidan gudahooda una sheegaya in uu raadiyo farxadda dhabta ah. daaraha codbaahiyahaas ama qofka ka soo dhex hadlahaya bulshada ma daawada muuqaalada quruxda badan ee aad iska soo duubtay ama sawirada aad soo gashay ee aad bulshada kale kaga dhigaysid inaad tahay qof faraxsan oo gaaray guulo muhiim ah. markasta oo aad isku qancisid farxadda khiyaaliga ah waa mid dhammaadka maalintaada kuu daarahaya codkiisa laasiga ah ee ka hadlahaya xaqiiqda qofka aad tahay. marka codkaas dhagahaaga uu soo gaarana durba waxaad isweydiinaysaa sidee ku helaa farxadda dhabta ah. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. inta muuqaalku uu socdo insha Allah tacaala waxaan kula wadaagayaa ilaa 6 qodob oo ku saabsan in qofku uu heli karo farxadda dhabta ah. laakiin intaan qodobadan uga gelin muuqaalka like noo saar si bulsho badan u gaaro. haddaad YouTube ku cusub tahayna subscribe-kaaga waa inoo muhiim. dhowrkan qodob aan rabay Ilaahay inaan kula wadaago kuwa ka dhigaya inaad ku noolaatid farxadda dhabta ah. laakiin waa markaad hirgelisid oo aad dabaqdid qodobadan. laakiin haddii aad ku ekaatid kaliya inaad muuqaalkan ka daawatid kadibna howlahaagii hore ee aad qabsan jirtay aad iska qabsatid oo aad isku dayidid inaad inta beero dad dhisteen iyo baabuur dad leeyihiin muuqaalo iskaga soo duubtid aad farxad ka raadisid ogo weli codbaahiyihii noloshaada ee xaqiiqda kuu sheegi jiray codkii ayuu kaa daba daari doonaa. qodobkan koowaad wuxuu noqonayaa ee qofka u sahlaya inuu ku noolaado farxadda dhabta ah waa samaynta camal wanaagsan. qofku inuu Ilaahay ka cabsado acmaashiisana uu hagaajiyo. in qofku uu camalkiisa si maalinle ah iskula xisaabtamo. xaasibu anfusakum qabla an tuxaasibu. Ilaahay quraanku wuxuu ku yiri man camila saalihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. qofkii sameeya camal wanaagsan isagoo mu'min ah waxaanu ku nooleynaynaa nolosha mid ugu wanaagsan. waa ballanqaad xagga eebba ka yimid. waana qodob haddii aan muuqaalkan oo dhan kusoo gabagabeeyo aan dhammaanteen ku wada faa'iideyno. qodobkeena labaad waxa uu noqonayaa ee qofka u sababa inuu ku noolaado farxadda dhabta ah waa qabashada wax ku farxad geliya. waa inaad su'aal isweydiisaa oo aad raadisaa maxaa adiga ku farxad geliya. wax marka aad qabanaysid aad jeceshahay ma jiraan. dabcan waxa aan ka hadlayo waxa weeye waa shaqo. waa wax horumarkaaga ku saabsan. kama hadlayo wax ku farxad geliya oo ah inaad Snapchat muuqaal iskaga duubtid, status inaad muuqaal soo dhigtid, inaad meelaha lagu qaxweeyo tagtid. dabcan haddii waxaas ku farxad geliyaan kama hadlayo waxyaabahaas. waxaan ka hadlayaa ma jirtaa shaqo ku farxad gelisa oo markaad qabatid aad farxad ku dareemaysid. shaqadaas ka faa'iideyso noloshaadana isbedel ugu samee. qodobka labaad waxa uu noqonayaa kuu sababi kara inaad ku noolaatid farxadda dhabta ah wanaajinta habfikirkaaga. bulshadeena maanta waxaa jira cudurrada muuqda ee aan naqaano ee dhaqaatiirta loo aado kuwa ka badan oo 10 jibaar ka badan oo bulshadeena ay qabaan. cudurka ugu badan ee bulshadeena ay maanta qabaanna waa cudurka ah habfikirka. bulshadeena maanta inta badan habfikirkoodu waxaa laga yaabaa in uu rafaad dhibaato wadankan wax ma yeelaan waxyaabo noocaas ah inta badan habfikirkoodu uga daaranta. laba qof oo isku meel ku nool ayaa midna waxaa maskaxdiisa ka guuxaya qabyaalad, burbur, rafaad, shiid, dhibaato dhan ba maskaxdiisa ka guuxaysa. halka qofka kalena ay maskaxdiisa ka guuxayso farxad iyo wanaag iyo mustaqbal fiican uu rajaynayo. marka hadba waxa labadaas qof kala duwaya waxa weeye hadba sida uu qofku u fakaro. marka qodobka haddii aad doonaysid inaad ku noolaatid farxadda dhabta ah
waa in aad hagaajisaa habfikirkaaga, waa inaad aamintaa inaad wax badan qabsan kartid, waa inaad aamintaa in aysan jirin cid ku caawinaysa in aad adigu wax qabsatid ma ahane. waa inaad iska daysaa khiyaaliga aad iska dhaadhicisay ee ah wadankan waxba laguma qabsan karo, wadankan dadkiisu isma caawiyaan. waxyaabaha maskaxdaada iska buuxisay waa inaad ka tirtirtaa, waa inaad habfikirkaaga u bedeshaa inaad maanta wixii ka dambeeya adigu wax qabsan kartid, adigu inaad horumar samayn kartid, adigu inaad wax walba oo aad ku taamaysid aad gaari kartid haddii aad Ilaahay tala saaratid. qodobka afaraad ee sababi kara inaad ku noolaatid farxadda dhabta wuxuu noqonayaa dabcigaaga oo aad wanaajisid. dabcan markii aan la dhaqmayno bulshada, la dhaqanka bulshada waa lagu kala duwan yahay. waxaa jirta dad bulshadu ay ku xamato inuu yahay qof aan dabeecad lahayn. haddii aad aragtid bulshada oo hadba kaa leexleexanaysa ama hadba kuu shiraysa ama adiguba qofkii aad la saaxiibtid aad bariyar ka bacdi aad kala haraysiin, dabcan meeshaas waxaa kaaga soo baxaya murugo. waxaad ku socotaa god ah kaligiis noolaansho. godka kaligiis noolaanshaduna waxa uu kuu sii wadaa in aad farxadda ka baxdid. haddii aad doonaysid marka inaad ku noolaatid farxad dhab ah, waa inaad noqotaa qof bulshada la dhaqmi kara. la dhaqanka bulshada markii laga hadlayo ma ahan in bulshada wax kasto ay jeceshahay aad adiguna la jeclaatid oo aad la qabatid. kama hadlayo in aad bulshadu meelaha iskugu yimaadaan, maqaaxiyaha iskugu yimaadaan inaad xaadirtid. kama hadlayo bulshada xanka iyo waxyaabaha ay wadaan qabyaaladda iyo qurunka inaad kala qayb gashid. waxaan ka hadlayaa hadba bulshada intii aad shaqo wadaag tihiin, hadba intii markaad waqti jaanis haysatid aad la sheekaysan kartid, inaad waqti qurux badan aad la qaadatid. in dadka waxyaabaha keena inaad bulshadu aad kala fogaatiin inaad iska ilaalisid. waa haddii aad doonaysid inaad farxad ku noolaatid, waa inaad dabcigaaga hagaajisaa, waa inaad noqotaa qof dabeecad leh oo bulshadu markii ay la joogto ay dareento farxad. qodobkeena shanaad wuxuu noqonayaa ee kaa dhigaya inaad noqotid qof farxadda dhabta ah ku nool, waa inaad shakhsi ahaan horumar samaysaa. bal qiyaas sanadkan iyo sanadkii ka horreeyay waxaa tahay isla qofkaagii. 5 sano ka horna isla halkii aad taagnayd ayaad weli taaganta. bal qiyaas farxadda dhabta ah ee aad heli kartid. dabcan waa yaraanaysaa. haddii aad doonaysid inaad ku noolaatid farxad dhab ah, waa inaad horumar ka samaysaa shakhsiyadaada. waa inay bil walba ay ku dhammaataa adiga oo hore u dhaqaaqay. waa in sanad walba aad isbeddel la taaban kara samaysaa. haddii aysan taas dhicin oo aad sanad walba aadan horumar samayn, waxaad u socotaa in aad murugo dareentid, in codbaahiyii noloshaada ku jiray uu kuu sheego in aadan horay u socon, in sanadkan iyo sanadkii hore aad meeshaadi joogtid dib u dhacna aad ku jirtid. markii codkaasi kuu daarmana waxaa xaqiiq ah inaad dareemi doontid murugo. si aad murugadaas uga baxsatid oo aad ugu noolaatid nolol dhab ah oo farxad leh, waa inaad ku dadaashaa in aad horumar samaysid. waa inaad ka faa'iidaysataa waqtigaaga Ilaahay ku siiyey. waa inaad ka fogaataa waxyaabaha maanta baraha bulshada haysta. maanta baraha bulshada waxaa haysta qabyaalad baa haysta, waxaa haysta sports baa haysta, waxaa haysta hadalla micna darro ah ayaa haysta. qoysas ayaa maanta baraha bulshada sheekadoodii caadiga ahayd kaaga sheekaynaya. haddii aad baraha bulshada saas iskaga taagnaatid oo qabyaaladda iyo qurunka iyo waxyaabaha baktiga lagu hayaa maanta saas iskaga daba wareegtid oo waqtigaaga aad ka faa'iideysan, waxaa kuu daarmi doona codkii xaqiiqda ka sheekeynayay. sidaas daraadeed, haddii aad doonaysid inaad ku noolaatid farxad dhab ah, waa inaad bil kasta iyo sanad kastaba aad horumar samaysaa. qodobka ugu dambeeya haddii Ilaahaymo aan ku soo gabagabeynayo waxa weeye waa inaad dadka kala caawisaa. caawintu dadku kaliya ma ahan inaad dhaqaale bixisid. qof alaab culaab wada ayaad culaabta la qaadi kartaa. qof ayaa hawl uu rabay inuu qabto la fududeyn kartaa. qof dambi kaa galay ayaad iska cafin kartaa. wax kastoo ay ahaataba
isku day inaad dadka kala caawisid. markastoo aad dadka caawisidna adna waxaad dareemi doontaa farxad iyo reereyn. qodobadaan kula wadaagay qodobkees si gooniya kuu taabtay, qodobkees haddii ilaahaydmo ayaad xoogga saari doontaa. kusoo dhawaada mar kale muuqaalka laakiin noo saara haddaad nagu cusub tahayna subscribe-kaaga aad ayay muhiim noogu tahay. ilaa muuqaalka xiga